Asalaamu calaykum. Halkan waxaan kula wadaagi doonaa maanta 5 xirfadood oo haddii aad barato uu dakhli fiican ku soo geliyo value bulshada ku dhex leedahayna ay kor u kacayso. Sida loo kala aqal badan yahay ayaa loo kala dakhli badan yahay. Waa sida ay yiraahdeen culamo hore. Maanta halkan waxaan kuu soo gudbin doonaa 5 xirfadood oo haddii aad baratid aad ka helaysid dakhli aad u badan. Fadlan waxaan kula talin lahaa inaad akhrisid buug la yiraahdo Aabba Faqiir iyo Aabba Hodan. Buuggaas fikradda aad aaminsan tahay waa hubaa 1% Allah ka dhigay inuu wax ka bedelayo. Haddaba maanta mawduucan waxa ku saabsan yahay sidee u samaysan karaa asset ama dakhli kale oo adigu wax ka soo gala. Laga yaabo inaad shaqaysid 12 saacadood, 8 saacadood, 6 saacadood, 5 saacadood, habis aad shaqaysid. Xataa arday haddii aad tahay waa ku anfacaya. Maadaama aad tahay arday, waxa laga yaabaa inaad adigu waqti heshid. Maadaama ardaydu ay waqti ka helaan badanaa. Haddaba maanta wiila bixin mawduuc wiila dheeraan. Maanta mawduucan waxa ku saabsan yahay sidee u samaysan karaa asset u gadan karaa ama dakhli ku soo gala adiga u samaysan karaa oo waliba ka madax bannaan kan hadda ka shaqaysid ama aad shaqayn kartid adoo guriga jooga. Haddaba ku soo dhawaada mawduucana maanta. Xirfaddeena koowaad maanta waxay ku bilaabanaysaa graphic designer. Graphic designer waxaan u maleynayaa dadku markay maqlaan inay ka aaminaan waxyaalo adag. Graphic designer wuxuu u baahan yahay inaad meel u gashid, wuxuu u baahan yahay inaad shahaado ka wadatid, dadku ma ku aaminayaan isaan weeye. Graphic designer haddii aad baratid waa in fikirkaaga adduunka uu wax iska bedelayo. Graphic designer maanta qof kasta u baahan, qof kasta, qof caadi ha aado, qof shakhsi oo meel ganacsi laha aado, mid aan ganacsi lahayn ha aado, qof kasta u baahan yahay. Graphic designer qofta u baahan yahay. Haddaba graphic designer faa'iido u leeyahay waxa ka mid ah adoo gurigaaga jooga ayaad iska shaqayn kartaa, adoo goobtaada shaqo jooga ayaa shaqo kale sii qaban kartaa. Graphic designer waa wax kasta u baahan tahay. Haddii logo la sameynayo, haddii poster la sameynayo, haddii marketing, social media marketing waxaas aad qaabilsan haddaad sameynaysid, wax kasta u baahan tahay waxa ka caawinaya graphic designer. Graphic designer barashadiisa ma adka. Waa adiga waxa waa filatid. Graphic designer Photoshop ka bilaabaysaa, kuwa ka yiraahdo jira, kuwa maca telefoonada caadiga lagu isticmaalo oo pixel la yiraahdo, pixel art la yiraahdo ay jira oo telefoon ku isticmaalaysid. oo kaas haddii aad fahantid oo Photoshop ay si fahmaysid, Photoshop aad ka bilaabaysid. Haddaa laabtaysid Photoshop waa ka sii bilaabaysaa, kor u soconaysaa. Photoshop haddii aad baratid waa fudud yahay. Photoshop casharadiisa meel kasta ka helaysaa. YouTube Soomaali waxa kuu sharaxaysa maxaa kale kuu sharaxaysa. Waa inaad barataa graphic designer waayo waa wax mustaqbalka dadka anfici doona 2023 haddii uu Ilaahay idmo. Kan labaad wuxuu noqon doonaa haddii Ilaahay idmo video editing. Video editing hadda haddii aad baratid video editing waxa hubaa adoo macallin dugsi ah, xataa inaad ka shaqayn karto telefishinada waaweyn, stuudiyaasha, adiga xataa aad noqon karto xataa qof muuqaalada sameeyo oo social media aad ku soo gudbin kartid. Sida muuqaalada loo sameeyo oo macallin aad noqon kartid aad soo gudbin kartid. يعني shaqo ku sii dulwad maskax shaqo ku sii dulwad macallin marka leeyahay sida loo kala maskax badan yahay ayaa sida loo kala aqal maskax badan yahay ayaa loo kala dakhli badan yahay marka leeyahay saan waaye. qof wuxuu ku eeyahay hal shaqo ku eeg halka shaqo iska haysanaa cimrigiisa waa laga waxa ka nin kule 20 sano ka shaqeynaysa gadan 10 sano ka shaqeynaysa 5 sano ka shaqeynaysa wili heerkiisa taagan kor ma dhacayo abna hoos midna ma aaday meesh nolosha qanacsiga caadiga bilkiisa la soo qaat bisha qanacsiga asset soo gada iyo dakhli ka samaysay nag mala. Marka video editing baro, video editing wuxuu kaa saacidayaa inaad ogow markasta oo wax cusub nolosha ku soo kordhisid. waa markasta oo qiyaamkaaga u kor u kaco. markasta oo qiyaamkaaga u kor u kaco way. Haddaba baro xirfad cusub 2023 si aad ula socotid caalamka aynu ku jirno. keena saddexaad wuxuu noqon doonaa Facebook ads. Haddaba Facebook adiga aad isticmaasho maalin kasta waqti kaaga lumo dad waxay u soo kacaan si ay uga shaqaystaan. dad baa u soo gala, dad baa waxbarasho u soo gala. Adna waxa laga yaabaa inaad u soo gashid, inaad bad soo xarado, inaad comment bixisid, inaad wax fiiristid. waqti bis kaaga lumo baa u soo gashaa. Dadna waxay u soo galaan inay wax ka bartaan, wax ka shaqaystaan, ka xamaashaan u soo galaan. Facebook ads waa very important waayo shirkad kasta oo maanta jirta geeyeena ama caalamka way u baahan tahay inay Facebook isticmaasho waliba page ay lahaato wax looga xaysiiyo. Haddaba Facebook ads haddii baratid faa'iidada waxay tahay adoo xaafadda jooga shaqaynaysaa. 2
waxa haddii aad baratay waa ku shaqayn kartaa dal iyo dibad oo lacag dee qofna ma dhigi karo macnihi ma la dhihi karo social media ma haddaan noqotid manager haddaan noqotid in xayeysiin waa u baahanta macnihi inaad facebook ama page ay shirkadda xayeysid inaad shirkadda u tagto waa inay xayeysiinaa page noocaan noocaan aan leeyahay intaas kale ku xirtada waa inay xayeysiinayaan kabacdi dakhli baan iga qaadanaya ama bishi intaasaan iga rabaa ama halkii xayeysiintaasaan iga rabaa haddii macnihi uu page-kaaga ku xiran yahay page weyn oo kale ama page aalada oo kale ama mid yar hataa aalada xataa waa ku samayn kartaa Facebook ads waa very important baro waayo shirkad kasta oo Soomaaliya ku taala ama geey kastaba oo ku taala oo Soomaaliya ka mid ah waa u baahan tahay Facebook ads waana very important Facebook ads inay barato waana mid is leeyahay waa fudayd mana adka run ahaantii mana adka Facebook ads wax adag ma aha runtii waa iska fudiya skills-kan afraad waxaa noqon doonaa language haddaba si aad u barato skills fiican ama skillska oo high ah oo hadda socda waa inaad barataa luqadda Ingiriiska waayo maxaa yeelay luqadda Ingiriiska waxay tahay very important because luqadda Ingiriiska waxaad ku baranaysaa wax kasta oo aqoonta u baahan tahay waa ka helaysaa haddii noqoto website-yadan waaweyn laga barto skillska video editing graphic designer wax badanaa dadka wax soo dhiga ama wax soo gudbiya internet soo gudbiya waa dad luqadda Ingiriiska ku hadla xataa erayo waxaa jira marka qaar aan fahmin kuwa Soomaalida xataa ay ku hadleen ay fahmeen baa jira oo Ingiriis ah marka luqadda Ingiriiska baro xataa wax ka bara xataa haddii aad fahmi weydo xataa wax ka bara xataa luqadda Ingiriiska maxaa yeelay waxay kaa caawinaysaa waxyaalo badan ilo badan oo kaa xirnaan waa ay ku fursaa haddaba insha Allah keena ugu dambeeyay aan kusoo laabnay waxa weeye web dadka kan wuxuu qaabilsan yahay dadka coding ka barta wax nooc kasta ahaado dadka coding ka barta ay u fiican tahay web design ama web developer horta web design iyo web developer isku mid maaha web developer waa back end wax ka dhacaya web design waa front end wax ka dhacaya marka haddii aad isticmaashid ama baratid si loo sameeyo web ama si loo qurxiyo baratid very important labada ku anfacayaan inaad baratid back wax kasta ka fiican iyo front labadaba haddii aad isku baran kartid alxamdulillah way ka fiican tahay marka inaad baratid web 2022 ku dhaaftay inaad wax laga yaabo xirfad baran laakiin aad qorta laga yaabaa xirfadaas baranaa waa qorta laakiin wax laga inuu ku shaqeyn haddii ay ku shaqeyn calculation ay ku leeyahay hambaliyo laakiin 2023 wax ka maarada inaad barato isku day shanta xirfad aan kula wadaagay siiba xirfadaha ugu fiican oo aan dhigi karo hadda waa la baran karaa waa Photoshop Facebook ads iyo shanta waa shan aan dhicin shanta baan soo sheegay waa shan aan dhicin waayo luqadda Ingiriiska haddii baratid waxa laga yaabaa qof adoo jacayl ka soo baxa laga yaabaa ama jacayl dhigta laga yaabaa inaad luqadda Ingiriiska aqoon ayay ka war hadhow adigana master meel aad aqoon luqadda marka luqadda iska dhis web design-ka ama developer-kana kii hadda aad ka bilow wax soo fudud wax soo adag ma aha wax kasta waa fudud easy casharadaada waa meel kasta ka socon kartaa naftaada biska adko wax kasta ka baran kartaa khadka internet ka baran kartaa marka isku day inaad wax baratid markasta aan nooshahay waxa lagu jiraa 2022 waa hadda waa baxay 2023 soo socda isku day inaad naftaada kor u qaado value-ga aad bulshada ku dhex leedahay markasta ay xirfad baratana waa markasta oo qiimaha kor u kaco inta ayaan ku egahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh